ولا العقوبة أرنا الليل هلا waxaa maalmihii la soo dhaafay barta bulshada iyo wargeysyada carabta qaar si weyn u hadal hayeen haweeney Soomaaliyeed oo magaceeda lagu soo gaabiyay Umayma in ay muddo 30 maalmood guur ku dhamaaday ee ku dhaxashay adduun lacageed oo dhan 67 milyan oo riyaal taasoo u dhiganta 17 milyan iyo 500 oo dollar. qisadan oo yaab badan dhalisa ayaa ku bilaabatay in Umayma ay muddo bil ka hor ah si qarsoodi ah u guursatay ama qodbasiro nin taajir Sacuudiyaan ah kaasoo magaciisa la shaacin sida warbaahintu sheegtay da'diisuna aad u weyneed hase yeeshee 30 maalmood kadib meherkoodii dhacay waxaa wadna xanuun degdeg ah ku soo booday ninkii maalqabeenka ahaa ee gabadha guursaday kadibna u dhintay wadna xanuunkaas. waxaa soo shacbaxday in Umayma ay ahayd xaaskii qarsooneed taasoo dhaxal siisay hantida faraha badan. qoyska marxuumka ayaa markii hore ka biyo diiday arintan ayagoo maxkamad geeyay kiisas ka dhan ah Umayma, balse nasiib wanaag Umayma waxaa marqaato u noqday ninkii geeriyooday walaalkiis la dhashay iyo waliba saaxiibkiis oo labadooduba marqaati ka ahaa meherkii maalqabeenka